عظيم الأجر أجر وين أيال هليا وعكمذا علو المنزلة في الآخرة آخرنا إلهي اكتيس الدرجة وين أيال وقارا يا صونك الدرجة ذا وقارا يوح سهلا معها وعكمذا صونك فإذا ديسة الإنصاف بوصف الملائكة وهوية إن لقصف وصفة الملائكة محايا الملائكة وحما عنان وحنا معبان وحنا مارتيا تغانو وهوية مارتيا حالة شهونا ما سميان oo ilaahay kuma abuurin ba malaa'ikta waxa weeye wax cunid lagu ma abuurin wax abid lagu ma abuurin shahwa lagu ma abuurin qofka markuu saa'im yahay marka inta soo dhan ayuu ka tagayaa rasuulkeena waa tawda alayhi salaam yad'u shahwatahu wa da'amahu wa sharabuhu min ajli qofka waxa weeye shahwadiisu ka tagayaa wuxuu cunayo ka tagayaa wuxuu cabayo ka tagayaa aniga daraaday inuu ka tagayaa marka qofkaas waxau noqonayaa mid ku sifoobay sifada malaa'iktu iska leedahay alqurbu min Allah azza wa jalla waxa kamida faa'iideysa ilaahi baa loogu dhawaanay subhanahu wa ta'ala soonka marka waxa weeye farad weeye waa rugn min arkaan al-islam rugn oo kamida arkaan al-islam weeye ilaahi waxau dhahay subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات marka uu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala soonka faral nimadiisa wuxuu u naadiyay dadka muuminiinta ya ayyuhal ladina aamanu ayudah ilaahay ya ayyuhan naasu madhin ya ayyuhan naasu markii la yiraahdo sida u badan tahay waxa lagu la hadlaa muslim iyo kaafir laakiin hadda waxa meeshan aad ogaahaysaa soonka dadka iimaan kale kaliya ayaa ilaahay u naadiyay waxa meeshaas laga qaadanaya hadii la cala su'aal ay timaado yaan soomeyn hadii la yiraahdo waa dadkan ilaahay uusan u naadinaan soomeyn dadaan iimaan lahayn dadka qofkii soomi waay asagoon macduur ahaynin waxa la ogaanayaa qofkaas inuu san iimaan lahayn maxaa yeelay ilaahay ya ayyuhal ladina aamanu markuu dhahay ayuu dhahay kutiba alaykumus siyaamu soom ayaa la idinku farad yeelay هذا صون كانوا وهو كميدها من الشرائع القديمة شرائع ظهر أيو كميدها وحيابا وحاجر أمة محمد قوني كؤه سيدا وحيابا صون كنحجر أو أي كميتها ليلة القدر أي كميتها مركا هذا صون كما كتب على الذين من قبلكم مول إلهي صون بالا إذن كفر ليالي ضدك مؤمنين تأه أو أمة محمد سيدي ضدك إذن كهري اللوغو كفر ليالي أيالا إذن كفر ليالي taas marka waxay dhiirigelin ayay noo tahayo ilaahay subhanahu wa ta'ala wax anaga gooniya noogama dhigin takaaliif anaga kaligeena maahan laakiin ummadii hore siday u soomaayeen iyo anagu saa u soomeeyna kayfiyadu waa kala duwan tahay waxa laga yaabaa dadkaas sida meelo badan soo aroorta maalmo khaas inay soomi jireen sida hadda yoomu caashuurada 10ka bisha muharram oo markaas yahuudu ay weynay jireen anagana soonkeedu sunna uu noo yahay لكن صون هذا بالرمضان waxa soomaya waa anaga oo ummatul muhammada laakiin soon anaga goonin ugu ma ahan soonka hadda marka la'allakum tattaquuna ilaahi soonku wuxuu dhalinayaa taqwo qofku hadii uu saa'im yahay waa qof ilaahay ka cabsanaya amarka ilaahay qaata subhanahu wa ta'ala hadana soonku taqwadiisa waxa kamida qofka waxa xumaanta ayuu ka dhowrayaa qofka wax ka soo xumaana ayuu ka dhowrayaa waxa la isku farad yeelaadana ayaaman macduudaad oo ilaahay maalmo oo tirsan oo yarow dhahay alle haday midalan baad su'aal timaado la yiraahdo warsee maalmahan u yar yihiin waxa la leeyahay maalmahan waa yar yihiin hadii loo nisbeeyo sanadka bil ma yar hadii la sanaba ay timaado bishu waa yar tahay waxa ila 12 bilood bil kamida hadii soon laga dhigay waa yar tahay baa la leeyahay oo 12 bilood iyo bil markaasi hadii la isgarab dhigo waxa weeye bisha ayaa wax yar noqonaysa soonka hadana waxa weeye aayada ku xigta ilaahay waxa uu dhahay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran ayaamaha kan hadda kooban oo la soomaayo waa bisha ramadaan oo quraanka la soo dejiyay falaaisha soonka waxa kamida in bisha la soomaayo oo ramadaan quraankii baaba la soo dejiyay quraankaas ilaahay hadana quraanka waxa la soo dejiyay sida ilaahay uu ku cadeeyay suuratul qadri habeenka ugu khayrka badanne oo kun bilood la khayra oo waxa weey leelatul qadriga la yiraahdo ayaa quraanka la soo dejiyay
quraanki marka ilaahay wuxuu u doortay bisha ramadaan ayuu u doortay bisha ramadaan soonka la soomaayo ummatul muhammad ayaa ilaahay u doortay haddana ilaahay wuxuu u doortay quraanka habeenkii ugu khayrka badnaay oo laylatul qadriga ah sida alla uu dhahay inna anzalnaahu fi laylatil qadri wama adraaka ma laylatul qadri khayrun min alf shahr quraanka waxaanu dejinay dhahay ilaahay habeenka laylatul sharafka ilaahay waa weyneeyay asagoo rasuulkiisa la hadlaaya wama adraaka ma laylatul qadri markaasuu sheego laylatul qadri oo dhahay sharafka layladiisu khayrun min alf shahr kum bilood ayay ka khayr badan tahay مثلا هذا وحوي قف كن بلاد عباديسي او ليلة القدر كجرين ايا هل هبين او ليلة القدر او بشهر رمضان كجرته ايا كسي خير بدنته marka hada qof oo ummatul muhammad oo waxa weeye sanad walba hadii maaratay oo soo wareega ilaahay waafajiyo oo laylatul qadrigana waafaqa laylatul qadrigana insha Allah ta'ala duruuseena soo qaada doona waxa lagu waafaqayo هذا ليلة القدر كليه هاد وافقد وما يقصنوا كم بلاد أيك خير بدنت هالليل هذا مركا وأنا اسكم مبالغه ليه هذا كم بلاد لا تريه وحين غنيسا سديتا يسد حسنا يأفر بلادين غنيسا كم بلاد مركا هذا قفك هل بالأو كمذا مارت يا رمضان بلا أنت اسكداي مال ما كله أنت اسكوهله سديتا يسد حسنا يأفر بلاد كهله هذا غنيمة كوين ما جرته انت سو مارت يا عباديسته مركب بشان وحان نوغو سغان خير ادي ادو فر بدن ايا نوغو سغان وا بشي مارت يا سداس هادي بشي رجب وهو داي رسول كان عليه الصلاه والسلام رجب شهر امتي وفضل الله على سائر الشهور كفضل امتي على سائر الامم رجب الهي سبحانه وتعالى ايا فضلي waxaa laga filanay bilaha intooda kale sida ummadayda ummadaha kale looga fadilay ay wax u dheerta maayay quraanka waa tawda ilaahi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas yawda ummatul muhammaday waxaatiin ummad midda oo khayr badan oo ilaahi koonkan soo daahiriyay ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ma'rufka ayaad isfaraysan munkarkana waa iska reebaysiin marka hada rajab ayaa bilihi laga fadilay sida ummatul muhammad bilaha uga fadil ay ummadaha uga fadil badanta وهو ده رسول كان عليه الصلاة والسلام وشعبان شهري بش شعبان وبشيدي وده وفضل الله على سائر الشهور بلا انت هذا كلا الله كفضل لي او رمضان كجنا واي اوغو بلا انت هذا كلا ايا الله كفضل لي كفضلي على سائر الانبياء وده سيدا انيغا لا ايغا فضل لي انبياء انت هذا كلا انت هذا رسول كان عليه الصلاة والسلام وها متفق لو يحيى انبياء الهي وده انه كفضل بدن يحيى خلقooda inuu ka fadli badan yahay shacbaan ayaaba markaas heerkaas gaaraya markaasuu bisha ramadaan asoo nabu ka hadlaa wuxuu dhahay waxa dhahay wa ramadaanu shahrullah yawda ramadaan waa bisha ilaahi wa fadala allah ala saa'iri shuhuri ka fadlillahi ala khalqi ilaahi bilaha ayuu ka fadlilay sida maaragtay ilaahi khalqigiisa uga fadlilay hada ilaahi iyo khalqigiisa wax markaas la iska rab dhigi kara miya رمضان marka sidaas ayay waxay u tahay bil waxa weeye wax walba laga fadilay khayrka ku jira aan la keeni karin aan la soo koobi karin marka harda intaas waxa weeye darsiga koobaad ayaan ka dhigaynaa darsi kale noogu sii xigsanaya marka insha Allah ta'ala waxaan ka sii hadli doonaa falaa'isha markaasi oo bisha iska leedahay insha Allah ta'ala wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh